صاحبتي أدبن دي سلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي صاحبتي ما أنت وحن جعلاضي إن إذن له وذاقو قصة أي كجرتو عبارة فجعة. horta intaan qisada gelin waxaan idin sheegay horta kow anu magac ma sheegay mana sheegay caadi ahaanteeda magacada nin saaxiibkay ah oo abwaan ah oo khatar heesa badan ii sameeyey dad kalena heesa badan u sameeyey baa qisadii ga sheekiyey abtigii hooyadii la dhashay baa qisada ku dhacday abtigiina waa abwaan kale oo khatar isagna oo aad heesa fara badan sameeyay iyo riwaayado fara badan iyo sameeyay marka abtigii wuxuu ahaa askari officer buu ahaa officerku markaad officer tahay waxaad xaq u leedahay inaad degto guri dawladeed aad wadato baabuur dawladeed sidaas bay ayuu barnaamijku ahaa marka guri dawladeed buu deganaa baabuur dawladeed buu wataa mishaar fiican buu wataa wax ka maqan ma jirto waxay ka tustay inuu hees qoro heestii gabadh baa loo dhiibay gabadh rooda la oranayay rooda axmed ilaahay naxariisto way dhimatay hadda baa heesta loo dhiibay hadda waxay dhacday qisadan waa 1990s-kii 1990-aadkii ay dhacday heestii markuu qoray ayuu gabadhii u dhiibay gabadhii way qaaday heestii waxay ahayd hees ereyada ku jiray habaar meedhana waa gabigeedu waa habaar waxaan nidhi wax ka maqnaayo ma jiro maneriya heestu uu sameeyna waa hees habaar oo qoray waxay heestu silicii malaabno sooniyo abaarban saqda dhexe ismu ogaan socotaynayaaye heestii baa lasoo tuuray kaban baa lagu tumay saxophone iyo waxaa lagu tumay qalab riwaayadaha lagu dhigay heestii samaday gashay odayga waxaa loo soo tuuray waraaqdii waxay odhanaysaa sir waxaad gaadhay waktigii retire dhag waa laga tuuray guriga markaa retire noqoto guriga waa lagaa saaraya baabuurka dawladda waa lagaa qaadaya mishaharka waa lagaa goynayaa 3 biloodba mar baa mishaar lagu siinaya waa 90 cishaa mishaar lagu siinaya haddii toole in retire baad gashay 3 months baa lagu siinaya 3 months lacagteeda lagu soo tuurayo lacag ku filan ma aha reerkaaga tii hore uma dhigmayso tii hore reerkaaga ku filnayd ma aha tan waa retire waa nolol kale nolol cusub baa galaysa nolosha cusbeed buu galay waxaa la yidhi lacagtii markuu helay buu reerkiisii qaaday marka dee nolosha maadaama ku filnaan weyday wuxuu ka saaray meeshii uu deganaa yuu ka saaray maadaama ku filnaan weyday noloshii meel kale buu geeyey magacda lama sheego baan horay u nidhi meel kale uu geeyey magacda lima weydiini markuu meeshii kala geeyey noloshii xoogaa wax yar buu u tuurtuuri jiray reerkiisa wax yar 3 bilood mar soo dhaca buu u tuuraya reerkii isagana wax yar ku noolaado buu kala hadhayaa wixii bas gaari waayey 4 in the morning buu maalmaha ka mid soo baxay quraac buu soo doontay maqaayad buu yimid maqaayadii quraaci dalbaday anigoo si quraaci la siiyo muxuu u dhadhamiyay buu ninkii lacagta gurayay ee maqalka hayay baa hadlay ninkii cuntada dhigdhigay buu hadlay wariyaa hebelow wardee waxa cajaladii way istaagtay gadi buu dhinaca kale u rog waxa cajaladii dhinaca kale loo rogi jiray magaran regto versogi rog buu marxaba ninkii baa rogi play dhagac heestii baa ka soo baxday silicii malaabno sooniyo abaarban saqda dhexe ismu ogaan socotaynayaaye markaasuu intuu cuntadii joojiyey buu samada eegay buu yidhi ilaahu dembi baan galay ilaahu iga saamaxay rabbi waa maxay heesta wuxuu tiriyey isagoona silixaysan maantana wuxuu dhegaysanayaa isagoo silixaysto isagoona socotaynayn buu tiriyey isagoo socotaynayuu dhegaysanayaa isagoo barwaaqo ku jiruu tiriyey saqdii dhexuuna dhegaysanayaa saqda dhexe ismoogaan socotaynaya soomayn saqdii dhexe buu dhegeysanaya hadda waa saqdii dhexe waa 4 in the morning
marka ujeedada aan uga socdo maaha qisada ujeedada aan uga socdo waxa weeye war dadka bulshada la hadlow dadka accesska u leh inay bulshada la hadlaanow wariyayaashow abwaanadow fanaaniintow culumadow farshaxanka wax sawirow qoraaga buugaagta qorow dadka bulshada accesska u leh inay la hadlaanow be positive dad positive noqda negative ka iska ilaaliya ka durka negative you never know lagu aqbali doonaa positive negative kan aad qorayso lagu aqbali doonaana Allahu a'lam marka isku daya xilli walba inaad noqotaan dad positive ka hadla positive ha ka hadlina negative dad ka hadlaysaana dulmara wala dulmara negative waqtiyuna kaaga lumin dulmar laakiin negative ka ku raag positive ka unjeeda positive ka ku raag waqti ku qaado positive aad ma diiso salaam ya saaxiibaday raalli iga noqda aad sare baa diiso salaam ya meel kastood kala joogtaan in noolaada oo bilaahi tawfiiq waxa la yiri lacagtii markuu helay buu reerkiisii qaaday marka nolosha maadaama ku filan weyday wuxuu ka saaray meeshii uu deganaa uu ka saaray maadaama ku filan weyday noloshii meel kale buu geeyay magacada lama sheego baan horay u niri meel kale uu geeyay magacada lima weydiini markuu meeshii kala geeyay noloshii xoogaa wax yar buu u turturi jiray reerkiisa wax yar saddexdii bilood mar soo dhaca buu tuuray reerkii isagana wax yar ku noolaado buu kala haraya wixii bas gaari waayay 4 in the morning buu maalmaha kamid soo baxay quraac soo doontay maqaayad buu yimid maqaayadii quraac dalbaday anigoo si quraac la siiyo muxuu u dhadhamiyay buu ninkii lacagta guray ee maqalka hayay baa hadlay ninkii cuntada dhigdhigay buu hadlay wariyaa hebelow wardee tahay waxaad xaq u leedahay inaad degto guri dawladeed aad wadato baabuur dawladeed sidaas bay ayuu barnaamijku ah marka guri dawladeed buu deganaa baabuur dawladeed buu wataa mishaar fiican buu wataa wax ka maqan ma jirto waxay ka tustay inuu hees qoro heestii gabadh baa loo dhiibay gabadh rooda la oranayay rooda axmed ilaahay naxariisto way dhimatay hadda baa heesta loo dhiibay hadda waxay dhacday qisadan waa 1990s-kii 1990-kii ay dhacday heestii markuu qoray ayuu gabadhii u dhiibay gabadhii way qaaday heestu waxay ahayd hees ereyada ku jiray habaar meedhana waa gabigeedu waa habaar waxaan nidhi wax ka maqnaay ma jiro ma nidhi heestu uu sameeyna waa hees habaar uu qoray waxay ahayd heestu silicii malaabno sooniyo abaarbaan saqda dhexe ismu ogaan socotaynayaaye heestii baa lasoo tuuray kaban baa lagu tumay saxophone iyo waxaa lagu tumay qalab ruwaayadaha lagu dhigay heestii samaday gashay odayga waxaa loo soo tuuray waraaqdii waxay odhanaysaa sir waxaad gaadhay waqtigii retire dhag waa laga tuuray guriga marka retire noqoto guriga waa laga saaraya baabuurka dawladda waa laga qaadaya mishaarka waa laga goynayaa 3 biloodba mar baa mishaar lagu siinaya waa 90 cisha mishaar lagu siinaya hadii toole in retire baad gashay 3 months baa lagu siinaya 3 months lacagta lagu soo tuurayo lacag ku filan ma aha reerkaaga tii hore uma dhigmayso tii hore reerkaaga ku filnayd ma aha tan waa retire waa nolol kale nolol cusub baa galaysa nolosha cusbeed buu saaxiibaday aad baan idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi saaxiibaday maanta waxaan jeclaaday inaan idinla wadaago qisad ay ku jirto cibaaro fajaca horta intaan qisada gelin waxaan idin sheegayaa horta kow anu magac ma sheegayo mana sheega caadi ahaanteeda magacada nin saaxiibkay ah oo abwaan ah oo khatara heesa badan ii sameeyey dad kalena heesa badan u sameeyey baa qisadii ga sheekeeyey abtigii hooyadii la dhashay baa qisada ku dhacday abtigiina waa abwaan kale oo khatara isagna
oo aad heesa fara badan sameeyey iyo riwaayado fara badan iyo sameeyey marka abtigii wuxuu ahaa askari officer buu ahaa officerku markaad officer waxa cajaladii way istaagtay gadi buu dhinaca kale u rog waxa cajaladii dhinaca kale loo rogi jiray magan recto versogi rog buu marxaba ninkii baa rogi play dhagac heestii baa ka soo baxday silicii malaabno sooniyo abaarbaan saqda dhexe isma ogaan socotaynayaaye markaasuu intuu cuntadii joojiyey buu samada eegay buu yidhi ilaahu dembi baan galay ilaahu iga saamaxay rabbi waa maxay heesta wuxuu tiriyey isagoona silixaysan maantana wuxuu dhegaysanayaa isagoo silixaysto isagoona socotaynayn buu tiriyey isagoo socotaynayuu dhegaysanayaa isagoo barwaaqo ku jiruu tiriyey saqdi dhexuuna dhegaysanayaa saqda dhexe ismoogaan socotaynaya soomahayn saqdi dhexe buu dhegaysanaya hadda waa saqdi dhexe waa 4 in the morning marka ujeeddada aan uga socdo